ujeedo go'aamo ka soo baxay shirka ayaa ka tashiga arrimaha siyaasiga ee beelaha Ciise Muuse ayaa waxa lagu yiri anagoo gudidi laga dhex magacaabay shirka ayaa ka tashiga arrimaha siyaasiga ee beelaha Ciise Muuse ee qabsoomay maalintii salaasada ee bisha 2 Agoosto 2022 shirkan oo ka dhacay hotel Garaad ee magaalada Hargeysa isla markaasina ay ka soo qayb galeen haldoorka siyaasiyiinta oday dhaqameedka aqoonyahanka haweenka dhalinyarada reerka dood iyo la fagurud qoto dheer kadib wuxuu shirku isla qaatay in la magacaabo gudi ka kooban 7 qof oo ka tirsan qaybaha kala duwan ee bulshada oday dhaqameedka siyaasiyiinta ganacsatada haweenka joogta aqoonyahanka iyo dhalinyarada si ay u soo raadiyaan xogo dheeraada ulana kulmaan qaybaha kala duwan ee arrimahan khusayaan isla markaasina ay u soo saaraan go'aamo la xiriira wixii shirka gudihiisa la isku qaatay iyo wixii xog ee lagu kala helay dhinacyada kulmay hadaba gudidu markii ay la tashatay oday dhaqameedkii siyaasiyiinta iyo wax karadka reerka markii ay wareysatay ee la fadhiisatay inta badan daneeyaasha siyaasadda ee reerka markii ay wax weydiisay aqoonyahanka iyo dhalinyarada reerka iyo waliba indheer garadka markii ay si dhow u diristay xaaladda siyaasiga ee haatan dalku maray iyo jaangoynta siyaasadda ee sanadahani soo socda imakana waqtigooda la taagan yahay markii ay u dhigmo yeelatay xaalka siyaasi ee reerka gabi ahaan baan ka muuqan saaxada siyaasadda markii ay garwaaqsatay waqti xaadirkani loo baahan yahay hoggaan siyaasi oo reerka ka saara jahwareerka siyaasadda ee waqti xaadirkani la soo dirsay waxay xubnaha gudidu isku raaceen qodobadani hoos ku xusan iyadoo la tixraacayo go'aamadii shirki ka soo baxay gudidu waxay ayiday inuu reerku sameeyo xulafo siyaasi iyadoo mudnaanta koowaad la siinayo xulafooyinka dhinaca siyaasadda ee laba gudidu waxa isku raacday in mudane Jamaal Cali Xuseen uu hoggaanka siyaasiga ee reerka uu majaraha u qabto isagoo wax karadkii odayaashii siyaasiyiinta reerka kala tashanaya cidda uu reerku xulafo siyaasi la yeelanayo saddex gudidu waxay soo jeedisay in dhammaanba siyaasiyiinta reer meel kastoo ay joogaan ay si wadajir uga shaqeeyaan danaha reerka iyo kuwa qaranka wadeecadana ka ilaaliyaan afar gudidu waxay ku boorinayaan bulshaweynta Ciise Muuse ee degta gobolada Saaxil Maroodi Jeex Togdheer iyo Daad Madheedh inay si wadajir uga shaqeeyaan danahooda gaar ahaan sida deegaanka siyaasadda iyo arrimaha kale horumarinta bulshada magacyada gudidan oo hoos lagu xusay ayaa waxay kala yihiin Cabdi Rooble Xirse Mustafa Xaamud Maxamed Muuse Xasan Jaamac Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Mustafa Ismaaciil Cali Caaqil Axmed Maxamuud Caawid wabillahi tawfiiq